sanad kasta maanta oo kala ciidamada dawladda Djibouti waxa ay u dabaaldegaan xuska waqtigii la aasaasay ciidamada qaranka Djibouti 6 Juun 1977 oo ka soo wareegatay 41 sano. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiil ka kala socotay dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyo waliba xubno ka tirsan hoggaanka ciidamada Djibouti qaybta gobolka Hiiraan ayaa waxa lagu soo bandhigay gaadika ciyaar iyo waliba ciyaaraha dhaqanka ay Djibouti u leeyihiin. waxaan halkan u nimid maanta xuska aas-aaska gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Maalin Sufurow oo munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ahaaneed ugu mahad celiyay ciidamada Djibouti qaybta gobolka Hiiraan waxaana uu ku amaanay kaalinta ay ka qaateen fatahaadda webiga Shabeelle oo ka geystay gobolka Hiiraan. ummadda reer Djibouti qaata waxaan leeyahay maalintaasi waa maalin taariikhi ah waa maalintii la aasaasay ciidamada jamhuuriyadda Djibouti sida dadka taariikhda ku xeel dheer aan ka dheeganay inta aan xorriyadda la qaadanin ayaa ciidanka la aasaasay maalintaasi marka inaan u joogno oo nasiibkeena ay ku noqoto inaan ka qayb qaadano xusidda maalintaas madaxweynaheena qaaliga ah Ismaaciil Umar Geelle markuu soo direeyay magacaas isaga oo aastay sanadkan laakiin waxaan halkudhig kale uga dhigaynaa sanadkii badbaadada samata bixinta fatahaadda webiga Shabeelle ilaahay baa mahad iskale iyagaan ku mahadinaynaa in dhabtooda iyo gacmahooda iyo muruqooda ay ku badbaadiyaan sanadkan 11,000 oo qoys inay ka soo samata bixiyaan masiibada halkan ka dhacay. Maxamed Barqad Aadan taliyaha ciidamada Djibouti gobolada Galguduud iyo Hiiraan oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay taariikhda la aasaasay ciidamada Djibouti. sadarkiiseen baa imika dhawaan waxaan ka soo dareernay xafladan ku maamuusinay asaaskii ciidanka jamhuuriyadda Djibouti oo la aasaasay 6 Juun 1977 imika waxa laga joogaa 41 sanadood marka ciidanka waxa la aasaasay ka hor dhalashada ama intii aan lahanan lagu dhawaaqin xornimada Djibouti horteed ayaa ciidanka la yagleelay oo la aasaasay taasina waxa ku tusaysaa in qaranimada ay u baahan tahay xoog iyo cudud ilaalisa sadarteed ayaa waxa hormaray aasaaska ciidanka jamhuuriyadda Djibouti ka hor intii aan lahanan xornimada iyo qaranimada jamhuuriyadda Djibouti. marka munaasabadan anigoo ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay in halkan hambaliyo uga diro dhammaan shacabweynaha reer Djibouti meel kasta joogaan gaar ahaan waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ahna taliyaha ugu sareeya ciidanka qaranka waxaan leeyahay hambaliyo golaha xukuumadda sidoo u dhayihiin waan hambaliyeenayaa gaar ahaan wasiirka gaashaandhigga taliyaha sare ee ciidanka iyo dhammaan saraakiisha iyo qaybaha kala gedisan ciidanka jamhuuriyadda Djibouti meel kasta oo ay joogaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaan waxaan si gaar ah aan u salaamayaa ciidamada hiil walaal ee ka howlgala Soomaaliya kuwaas ayaguna jooga meelo kala gedisan ha u badnaadeen gobolka Hiiraan oo rasmi ku yihiin ka howlgalaan iyo saraakiisha kale iyaguna taliska ciidanka Amisom ka howlgala ee jooga Muqdisho. محمد عبد البادل Somali Cable TV magaalada Beledweyne.